السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برنامج gaar ah aan ugu talagalnay inaan ku falanqeyno doorashada la filayo inay ka dhacdo waqtiyada nagu soo aadan dalka Soomaaliya gudihiisa. Barnaamijka galabta ayaa waxaa marti igu ah siyaasiga weyn ee Soomaaliyeed Cabdirashiid Cabdullaahi Ubada. sidoo kale barnaamijka waxaa marti igu ah Professor Yaxya Sheekh Caamir. isla markaa barnaamijka waxaan ka marnayn oo asagana marti igu ah Abukaate Zakariye Maxamed Sheekh. kusoo dhawaada barnaamijka wareyn anigoo ku horeynaya siyaasi Ubada sidee u aragtaa doorashada la filayay inay ka qabsoonto waqtiyada nagu soo aadan gudaha dalka Soomaaliya? bismillaahi raxmaani raxiim. Cabdifataax waa su'aal muhiim ah. doorashada kulley hadda processkeedii waxaan filayaa inuu horta gunaanad ku dhow yahay. waxaan oran lahaa ilaahay mid khayr qabta ha inooga dhigo, iyadoo musharaxiintuna aad u tiro badan yihiin, caqabado badan ay jiraan oo dal baaba'ay oo muddo dheer dee u baahan in institutionskiisa iyo wax walba la dhiso ay hor yaalaan. haddana waxaan leeyahay ilaahay wax khayr qaba ha nooga dhigo. ay professor kulli wanaag waa rajaynaynaa ilaahay wax khayr qabo inuu ka dhigo. laakiin haddii aad gadaal u fiiriso Soomaalida badanaa shalay waa hilmaantaa, maanta markaa cabirayso shalay inaad cabir u qaadataa fiican. sida waxaan baarlamaanka uu ku sameysmay markaad fiiriso musharaxiintaana faraha ka badatay in la qiimo tiro xildhibaan laba qof saddex qof oo la ogaa kaliya ruuc cadaay kaliya ay wax raadin lahaayeen waxbay naqan lahayd. marka waxaan ka baqaa waxyaabihii gadaal jidka kusoo khaldamay intii processkan lagu jiray in gadaal adhow marka la foosho in kuwa la dhala haddana khaladaadka hore uur galay inuu soo baxano waa suuragal. laakiin waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu noo wanaajiyo. ay Abukaate Zakariye sidee u aragtaa? marka gedisni saaxiibaday rajaduna markastaba waxaa fiican khayr in la rajaysto. Soomaalida waxay tiraahdaa khayr waxba kama dhabe maxay ahayd shar u tookahay. marka horta mid waa positive oo si fiican in kumeel gaar sheekadeedii xoogaa waa yaraata la yidhaahdo waa laga gudbaa la yidhaahdo. labaad walow aana dhihi karin intervention ma jiro oo aan hubo interventionna fara badan inay jiraan, haddana in dalkii lagu qabto oo xildhibaanadii lagu dhaariyo oo lagu dhiso oo doorashadii gudoomiyaha ka dhacdo oo madaxweynaha doorashadiisa dalka ay ka dhacdo, haddana waa arrin kale oo aan soo dhaweynaa positive kale. walow ay jiraan interventionka banaanka dhici jiro kale mid lamid ay ka jiraan oo faragelinta ayna marayn, laakiin anigu waxaan leeyahay waa tallaabo un horumar dhanka siyaasadda looga qaado. midda kalena way jiraan qaladaado oo aan la inkiri karin oo cid indhaha ka qabsan karta ayna jirin, laakiin waa goobteeda iyo waqtigeedaan ku arki doonaa. sidii horey awal aan u naqiinay Abukaate dowladaha dariska la ah fargelin ay Soomaaliya ku hayeen ayaa jirto. musharax kastoo imaanayana waxa uu ku imaan jiray qaab dowladaha ee dariska la ah inay raalli ka yihiin ah. musharaxiintan hadda ma ka dhex muuqdaan wax saas mise? dabcan marka mar waliba midda kaga sii darna waxay tahay oo lasii adeegsaday ilbaxnimo tii hore kasii horeyso. wadamada dariska ee aadka noo danaynayo Jabuuti, Kenya iyo Ethiopia, saddexda ambassador ay soo magacaabeen saddexdaba saddex noo Soomaaliya oo goglihii dadkii la joogaan oo ummadda ku dhex jiraan oo luqadii maahan wax kala lahaa xataa dhaqankii qabaa'ilkooda ay degan yihiin magaalada Muqdisho oona ka marran in adeerkiisa uu tagayo oo habaryartiisa uu la cunto cunayo ayadiisna uu barri soo salaamayo oo aan adiga iyo isaga wax farqi idin dhaxayna lobinkiina wado oo hadda dhanna oo ku wada nin reer hebel waayo kama jooji karto, dhanna wuxuu ka wadaa midda dawladdiisa oo ka wada caddagaan lama arko. marka waxba kama gedisno weliba waa loo sii shaatigeliyaa leeyahay, laakiin influence-gooda ama koobaya oo handadaadii hore iyo si u sameyn jireen iyo ameen u sameynayno xoogaa un qof qalbi daciifa maahane dadka kale faragelin fara badan ameen ku lahayn, taasna waa qabaa raje. laakiin waa malataa ma dhihi karo. Professor dad hadda ilaa hadda musharaxiinta ku jira ma jiraan oo la leeyahay wadamada dariska ah raalli ka oo ayagaa wato? daanaku meelay ku wataan ma arkin, laakiin waa badan tahay in la leeyahay. Soomaalida waxay tiraa nin masquulka adimo jamaaca ma helo. nin Addis Ababa Nairobi kaaga qaylinayo xagga laga wata kaala iraac kule horta adagtaasaad ku raacdo jamaaca ugu naqato. laakiin waxaa fiican nin Soomaali ay wadato kule xataa kule reer hebel qabiilka ay wato, laakiin hadduu hadalkaaga bilaabo lacagna waa haystaa. wadamadan dariska Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya ay wato
waa iska saaray awoodda uu ku tiirsan yahay waa ka bixiyay soomaaliya gudaheeda inuu banaan ku tiirsan yahay mumathala cid kale u ekaanaa marka qofkuna wuxuu u shaqeynaa cidda kalsoonida siisa cabsidaas waa iska jirtaa laakiin hadda qof la dhihi karo hebel hadda maalmaa yaraa xamar wada moognahay oo qof ugu badan sitimaal ka maqan yahay inta xamar iyo halkaan waa isku dhuya waxa ka dhacaya saacad walba lala socdaa waa jiraa hadalkaas oo qofku laftiisa kalsooni qaba haddayna ku taageerin dowlad diriska ah waxba naqamaysid hadduu meeshaas ka dhaqaaqay berina xafiiska wadi ma karti haddayna dowladdaas ku taageerayna naqanaya marka jamaaca la-aanta imaanaya beesha caalamka ma las dhihi karaa markan waa ka gudubtay master ubada in wadamada dariska ay u adeegsato arrimaha soomaaliya oo ayadia si toos usoo faragelis wallaahi waxay ila tahay kulley wax qeyb ka mida waa la oran karaa oo waxaa loo oran karaa haddeer dowladihii dariska stil wax waa la weydiinaya oo saaxiibaday kama fogin influenso way ku leeyihiin laakiin waxay uun beesha caalamkuna way wadaa hawsha laakiin arrintaa anigu waxaan u arkaa inay ku xidhan tahay maaragtay hadba dadka metelaya baarlamanka oo kale hadda oo aan odhan karno in yar buu dhaamaa kii hore inkastoo aan lagu degdegi karin oo dee moogtay taageeradu had iyo goor waxay u baahan tahay inaad eegto qofku wuxuu qabtaa ama lagu taageera ama lagu dhaleelaa maaragtay normal ahaanba sida xaajadu ay tahay marka kolley waxaan u malaynayaa inay wax ka gudbeen waa wax macquula oo jira oo hadda aanay dowladuhu darisku siday u hanjabi jireen ama se ay keligood awal involved u ahaayeen oo tala bixintooda loo dhageysan jiray waxaad moodaa hadda in gacmo kale ku jiraan waa gartay musharaxiinta sidaan wada ognaa waa musharaxiin aada u tiro badan oo ilaa 25 kor u dhaafay musharaxiintaas kala reebidooda baarlamaanka soomaaliya mashquul badan miyay isku qaadan karin oo sidii u kala reebi lahayn wallahi de waaba hawl aan sahlanayn marka hore laakiin waxaad moodaa waxyaabo badan oo interest ah inay jiraan oo maaragtay u baahan in maaragtay la mention gareeyo ama la taabto oo maaragtay la xuso waxaa ka mid ah oo kale hadda xildhibaanadu haddii ay yihiin inaanay ka madhnaan karin ilaa haddana wax aan oran karo wallahi waa laga tegi ma garan karo aan caddayn karo midda kale interest baa jiraya iyana ay ku rabaan hadday doonaan jagooyin oo ay ku rabaan hadday rabaan kulli qaarkood isku wada mid maaha qaar soomaalinimo iyo shaqo dhab ah iyo wadaniyad waa laga yaabaa inay u shaqeeyaan qaar baa boosas raba qaar baa howlo dhaqaale raba qaar baa moogtay marka waxay ku xidhnaan kartaa hadba iyaga maaragtay personificationkooda ama shakhsiyadooda sida ay tahay professor in musharaxiinta xilligan ay ku soo cararaan inay madaxweyne ka noqdaan dalka soomaaliya dagaaladii ay ragaadiyeen maxaa sababa la dhihi karaa musharaxiin badan horta wuxuu baanta jaab ka buuxi wax baasadoon u baanta markaa runta fiirisid qof walba markuu sharaxayo wuxuu ku leeyahay waxaa soo dhisaa dowlad tayo wanaagsan madaxweyne sharaxan oo doonaya kursiga dowlad tayo laha soo dhisaa ciidamaan dhisaa shirkada ganacsiyaan keenaa shaqadaas madaxweyne shaqadiis ma aha hadduu ra-iisul wasaare isku sharaxaya ha yidhaho taasaa rabaa laakiin nin madaxweyne isku sharaxaya dastuurkaa ilaalina sharciyada guud oo waddankan dhowraa midnimada ilaalina shaqada madaxweyne taas waxa badanaa madaxweyne ra-iisul wasaare isugu dhacayaan waxaa ugu badan hataa madaxweyne baarlamaanka wuxuu u sheegaa shaqada ra-isul wasaare inuu qaban doono khaladka dhacaya kaasaa kamid a kuwan beesha caalamka aan u bixina horta beesha caalamka markaan leena anigu beesha aakhira baana caalamka mid kamid aana bal nairobi ama adduunka tag xafiisay ku taal beesha caalamka weligaa ku arki maysa ama calam beesha caalamka wax arrinka noola samaysa dhowr dowladood oo kala dan ah yaa inta isku qaadna beesha caalamka ula baxna aawa xafiiskada beesha caalamka intee laga xukumaa wax jira ma magaca wahmiyaa naloo dhiiyo beesha caalamka la yidhaha beesha caalamka spoiler ku aqoonsanaya beesha caalamka been caalam isku dayn maaha haddii hadda wax inta ku leeshin mid kula spoiler ata mida dhahay been waa spoiler maa ninka waa fiican marka maslaxadiisu ka arkaa marka masaalix kala jeedo oo isku mid ahayn anigu waxaa dhinacayna waxaa haysanaa hal shay beesha caalamka la yidhaha ina jirto aniguna beesha qiyaamaha inayna marka waa dad badan inay soo doontaa waqtigan waxaa keena waxaa laga yaabaa in qaar sidii hadda laga hadlaya qof dhabarka laga soo taabtay qof oo xukun jecla riya iska ah dad badan waxaa dareemaya inayna xisaabtamin xataa qaar badan waxaan ogaa haddii bas sharaxaan hal cod inuuna heli karin haddana wuxuu ku leeyahay qaar aan ku justification ka raadinaya c v gaan gashana war c v ga laftiisa maxaa ku galaya haddii berri inta meel uu keenu yiraa hadda kora isu sharax madaxweyne meeqa codaad heshay waxba ma helin shaqa ma heli maysid marka waxaa taa qof aan balans qof aan qiyaasi karin doorka uu imaan karo si aniga berri kugu dhiibana inaan shirkadayda meel iga shaqaysid oo qorshe ii samaysid ninka u bareeray wax uu ziira helaayo ogaan waayey haddana qofku markuu leeyahay waxaasaan qaban doonaa in la weydiiya bal intaada markaa madaxweyne naqda kaasa inay qabanaa markaa shuruud looga dhigayso intaada naqan maxaad qabatay madaxweynenimada ka hor
nabadda maxaad ka qaadatay waxbarasho maxaad ka qaadatay maxaad waddanka usoo qabatay qofkii la fiiriyo laakiin haddaba madaxweyne iga dhiga waxba kuu qoomayo laakiin maalintaa madaxweyne noqdo saasaan yeeli doonaa wax riyaha ilaagtayda nafteeda abukate arrinta uu ka dhawaajiyey profesorka ee ah in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha shaqadoodii inta madaxweynaha uu sharaxayo baarlamaanka uu sheegayo warbixinta waxyaabaha uu qaban doono in isku horimaadka meeshas uu ka bilowdo sharciyan adiga see u aragtaa bismillah adoo wada dhegaysanaynay ani profesorka nimankii hadlay intooda badan wuxuu u taagnaana ordayey oo musharax uu ahaa xil la yaqaano mucayana dastuurkiina uu caddeeyey oo madaxweynaha jamhuuriyadda waajibaadka iyo howlaha madaxweynaha jamhuuriyaddana waa wax cad waxaa waaye waa ilaalinta shuruucda qaranka iyo ilaalinta wada shaqaynta hay-adaha dowladda baarlamaanka iyo dowladda waa magacaabista prime ministerka inuu soo magacaabo prime minister iyo inuu controlo habsan u socodka sharciga iyo shaqada dowladda judiciaryga dowladda iyo kan hadhowda haddii uu yimaadana khilaaf uu yimaadaan ama isqabad u yimaadaan inuu noqdo odaygii u dhexeeyey oo kala hadlinaya marka intii waa hadlaysay hebel inaan dhaha ma raba laba nin bis aanse saddex ayaa waxay yidhahdeen waxaan u taagnaahaynaa kana shaqaynaynaa ilaalinta shuruucda qaranka samaynta shuruuc wanaagsan isu ilaalinta hay-adaha dowladda saddex ninaa ka xusta inta kale dhan waxay ka wada hadlaayeen shaqo uu leeyahay sidoo uu sheegaya profesorka prime minister uu leeyahay dowlad tayo laha dhisaa isaga ma dhisaay prime minister ka dhisaay ciidamadan waxuu qabanaa waxaan sameynaa kanaan sameynaa haweenkan promotion ka dhigaa weliba naa cajiib laha wuxuu yidhi waxaan ra-iisul wasaare haweenaan kasoo dhigaa haween hadduu ra-iisul wasaare kasoo dhigo annaga dhaqankeena 100 year oo advance naga dhiga aad u fiicnaan lahayd laakiin intay tuu ku maamula durbaan ninkii qaado meeloo ku tumoo rabaa le ma iyo aniga cunsuri ina nahay oo haween aan diidanahay laakiin advanced ma u nahay saas marka riyooyinkii teeda labaadna su-aal aad weydiisa saaxiibada أنا نيجي مسك حدا نعك قعنايس أو سبب تنكيني سأيتاي أنا إفينا أو بحنا الله هو one thing محايا دتك حدا إنتان أو قف إسوس شرح لي أنا مدحولني مسوي دولت كوس السجل سببه أيات الآن هدي لواي مش نتعبر لواي أو قف كستو أسقو عبر كر وح أو ربنا أو عبر كر أواي وتقف قوة وأنا سكسو أردا عن فيرن وشان إلا بعتنا على صور بالليستك لكن كهر واحد تجنبي كونتن إسداد اسكو قبل كونتن إسداد ده سيدو اسكو صوّد قبل شروطها الرابع أوها سي فيجا يولعكتا شروطها الرابع إلا ما تنشأ كل مدين كونتن إسداد ده سيد أن أجنحه شنكر يا صومالي ده شديد الوقتو أو صومالي ده حكي أو صومالي جوجت كونتن سيد هذا كل الدياسبورا ده بيتكلم مدين لما تكسر وكمل معي شن إلا ما تنكر صوحتي سيد حكي يا صومالي باسبور كست أنت كلو الدياسبورا دبتك وديدين مش المات بدلك وما حيابا wax ka dhaca ku ilaa tagsanana ma ogo wax la isku dilay ma ogo wax la isku haystay ma ogo wax uu cabirtaa ma ogo kaliya dadku wuxuu ka maqlay wala qatama hataa dadka oo soo ordo anna way kana waxa ka maqlay jiray ya anna hadan kooyaan maqlay jiray bariga oo rabshada ay soo anna hadan kooy marka Soomaalidu waxay tiraahdaa meesha hadii uu il ka baxo caraba u hawsto hadii way aragii kii xushoonay kii aqoonta lahaa kii dalka wax ka ogaa kii experience lahaa oo gaabsaday oo isii xilliga ma samata bixi karta dadka هذا واحد أسوأ هوناي من أو على وحنا قرنين experience لحين أقوم كفر لحين نحن هبل إلى الأحمر الواحد لا يحول وخمس أكانه أقوم تدي علم كذا عليها سائدين بتبادلها دقري قوها سنوات مقامة ودقري على الحين economic الحين إن artist بشقة كل حين علم وأنا صوبته علم مدحوين علم مدحوين ما قال بلو برتوا leadership نم style leadership نم وموهبة experience واحد وسوق قال حضرتك ولا ولا على أقول تيجي صورة مركب كوسك كان وحاجة تحين حضر سووا الأوروريس من ما كفتم من أو يجري إن سكر أودلك وحلوه هلا مجد إن الدرجة السياسية قبضت وأذكر قلت الستة معنا داد أيه وحكوتو سيسا تصالح على سوق هذا 1960 إلى هذا نكستو درجة قطع وحد أكيسان نورش جورجيس يا فاميلي جيس هاي صار يكونوا ليه
markii lacag misappropriated la dhacaa sharci kula xisaabtamaya male cid la xisaabtamaysa male marka wiilashan soo wada ordada diaspora ka yimideen dhaqankii waxay haystaan aabayaashood hataa dhinac kale markaad dalka fiiriso 25 tartamayso markaa taariikh ahaan hoosta aad u wada akhrisid waxaad arkaysaa some backgroundkooda dambe aabayaashooda ay xil soo wada haayeen marka inta uu aabihii soo dhunsado u raba haddana inuu dhunsado second time marka nolosha uu kusoo barbaaro arka that way marka waxaan leeyahay waxa keenay oo runta markaan soo wada ururiyo in qof kasta uu soo wada xisaab la-aan waaye haddii Soomaali isaabaal mar leedahay xisaab mar leedahay dhinaca tuugaa tahay shalad wax dhacday adiga lacagta wax kusoo barto tuuganimo aheeday xagga naga istaag la isdhihi lahay ma dhici lahay ma soo ordeen ninkii shalay wax dhacay aa imaanayo wuxuu leeyahay halaysiyo waa la yaqaanaa mashruuc hebel ninkii dhacay xabar soo naqaanaa anaad 30 milyan mane hadda madaxweyne rabo oo ku leeyahay nadiif ana goormaad nadiif noqoto dagaalkii sukay adaa abuurta lacag dhacda ku abuurta lacagtii haddana ku tartamaysaa welina waxaa rabtaa dalkii waxaa ka qabanaya inaad tiraada anna waa ku ogahay waa fadhiyaa daatu problemka in waxay tahay ilaa Soomaali ay dib nidaamkeeda inta uga saxdo la istaagaya criteria run ah la leeyahay that and this ana laga joojin leeyahay oo aan isku wada raacayno waxaa noo imaanaya Kenya noogu dambiilaha badnaa mana dhacayso mid inta la celiyo mid kale in la soo dhaweeyo Mr. Ubada أنا مشرحين تا مدام آد يتر بدينين ما لسدي كرا وحي أنت عاس يسكوش الرحمة ووضع أجين عيقا إني سمدحوين النقونين لكن مركي مدحوين نمد الوجود ستوريز الوزارة لصوم جعابه آد وزير أما جاك كلا هيشيت إنه نوال بكوكر قرطة ما يساس إنه مدحوين يسكوش الرحمة ده كرتاه كل أبوكات الزكريا الرأوركي سجنان هي يردي بقول هرتا كمان مرنا أرين دقالي أرينتو كوس waxaa laga yaabaa dad badan oo hadda qaarkood laba garanayo oo haday rabaan drop out ku ahaa meelahaas maartay diaspora inay halka kan u soo doonteen jago iyo dhaqaaleba wixii ay ahaan lahayd marka waxay ila tahay inaanay ka marnayn madaxweyne inaan la wada noqonayn madaxweyne waa hal kursi ee ma aha 55 kursi marka waxay ila tahay anigu kuleysaan qiyaasayo kama marna waxaad adigu ka hadlaysaa wasiir iyo wasiir ku xigeen iyo wax la mid ah qaarkood maareeyaal bay qaadanayaan because meel ay fariistaan u bay raadinayaan ama ay nolol ka fiiriyaan kaliya waa ka saasaan uga ilata Professor beesha caalamka oo ugu horeeyo dalka Mareykanka waxay ku dhawaaqeen in lagu qancaa natiijada ka soo bixi doonto doorashada waqtiyada soo socda ka dhici doonta gudaha dalka Soomaaliya beesha caalamka ma isdhihi karaa markaan way ka go'an tahay wax ka qabashada dhibaatada ragaadisay dalka Soomaaliya wala ana horta beesha caalamka ma aqaan laakiin dawlad gaar ah ay sheegtay dawladaha qaarkood waxay yiraahdeen waa fursada ugu dambeysay waxa ka soo baxo yaa laga hor imaan hala taageero waxa iyagu markaas ay rabaan madaxweyne ay rabaan oo ka soo baxo koow iga diiday horta inta anagu ka hadlin iyaga mucaarad ku naqanay hada dawladda noo soo socoto kuwa beesha caalamka dad ugu yeerisay inta ku shireen laba usbuuc ka hor koow waxa la go'aamiyay dawladda ma doonto in lacag la siin hada lacag la xada inta ku xisaabto buu argaan ya cagyaan la siinina leeyahay koow maxay naqanay marka waa ordo waa dhaqaaq weyne waxba la ogolaysiina markaas haddii waxaa soo galaataan waa kaas hadii kan hore looga heshiiyay lacag lagu siimaa isku filaysay cashuurtaada dawladda cashuur isku filaysay kartana ma jirto marka nimankan ku dhahay laga hor imaan kara marka waa la raac ani waxaan ka baqaa kuwa ugu hore ka hor yimaado kooxda beesha caalamka allana qayb ka mid ah noqoto marka iiga kala dan ah kala awooda laakiin anigu Soomaali ahaan ka hor imaanay ilaahay kama hor imaaneen laakiin haday keentay inaad korto waada ka hor hadda waxaan ka caawinayn waxay ahayd xoolaha la dhacaa kana xadaayaan inkoo tuuga sameynaya horta ilaahay waxaa ka barya xoolo Soomaali ka dhaxeeyo inuu ii dhiibin inta noola urug ila laga qaada ay qaabdar wax adoo keelaa dal meel kasta dacaadi aad laakiin ku ilaalina inaan ka mid noqdo walba oo ina walax ayaa la xadin haddii marka waxa loo ordaa ay tuugata qofka duu wax xun sameynaya ujeedo ka aamus alcaful iimaan miya qalbiga laan ka dhacayna miya ma rukuba la isla gacala la isla taga 20 sano khabrada on lana dawlad xumaata gidiskeedu wax weyn ma ee lagu xumaanayo ilaa shan ayaa abukaate fikirkaas mid lamida ma qabtaan mise mid ka duwan ما كذا مركز على سؤال شيء تاع باش عارف يكون عدنتها باش عارف هو كلا ضرب راح اسقط انا هنا مجرى ما هو موقف سوور راعيانا وما مرن دنيا يوم ما كفدي سوي مدين oo soo baxaya komunikeega waska xalal qurxin waa diplomatic wax wax mar weyn ma aha mid kasta danteeda ilaashanay tii danteeda ay weydana
iyadaa bilaabaysa oo inay daba furfurta ay bilaabanayso laakiin si haddaad u fiirisid waxaad moodaa shalay iyo maanta inay wax yar kala gedisan yihiin adduunyada waa nagu daashay burcadbadeedaa nagula daalay wadaada qorya wata oo argagaxsa lagu sheegaa nagula daalay annaga qaxootigeeni waalanaa waa nagula daalay waddan kastaan ka daba cararaynaa almena ama stabilization ayaga uun ay leeyihiin inta loo ay samaystaan oo lagu taageero oo rabashkooda iska dejisiin horta adduunyada markaan way maraya marka adiga tusaale haddaa iska soo qaadid family inaad maalin kasta biishid waxaa kaaga fiicnahaysa sometime inaad telefoon markaan yaaqa intaasoo ka badan ma wadi kara aan beer yar u agaaguma beertiina fasha way u badan tahay inay duniyada ay taagan tahay maanta Soomaaliya waxaa tan loo agaaguma waxeeda lidahdo war wixii isku falaysiya wixii dheeriyaad u baahantiina waa kana oo wayna u badan tahay marka dhan walbaba waxaana lagaga taagan yahay cajis iyo culaysana laga taagan waa wax suurtagal haddana maadaama isku danan ahayn oo nin badan uu leeyahay waa suurtagal haddana markii koox danteeda ay weydo koox kale inay ka leexato fallaaraha dhinaca kale ay kala soo baxdo cartaba waa lasu sacbiyey hala taageera lagu heshiiyey imbagaat waa lasu sacbiyey hala taageera lagu heshiiyey jabuuti waa lasu sacbiyey hala taageera lagu heshiiyey hadda waxaba meel inay gaari weysana de wax ka dambeeya waa la ogaayo supporterkii lama siin ay u baahneed lama siinin ama moral ha noqoto ama financial ha noqoto middaana sidoo kale haddii wax soo baxaan hala taageera aqoonsi hala siiyo not problem laakiin financial support ma hele oo investment fiican ma hele ma loo ogolaanaa waxyaalaha waajibaadka oo inay ku jirto ma loo ogolaanaa taas waa okay waxaan arkaynaa boqolaal riboor soo wada baxdo oo rag kamid ah hadda ragga hoggaanka ku jiro oo tartamayaan lagu dhaleecaynaya la leeyahay tuugo waayo waa misappropriate haddii hadda ayaga ay soo noqdaan ma tiyaa la dabageli doonaa la dhihi doonaa waxbay dhaceen oo waxbay boobeen ma la dabageli doonaa mase waxaa leeyahay tii shala naga dhaafa hadda aan gacan siino ma waxaa waaye waa ujeeda badan waa sugaynaa laakiin mid ka dhigo Mr. Ubada baarlamaanka Soomaaliya ma noqon doonaa mid si daacad ah u soo doorto qofkii hagila dadkan Soomaaliyeed iyo dalkan Soomaaliyeed ee dhibaatada ku habsatay mise wuxuu noqon doonaa sidii baarlamaanadii kan ka horeeyay lagu yaqaanay oo kale in macnaha qof wax uun sita sidii hadda ay ka dhawaajiyeen professorkii abukaataha oo kale iyo adiga laftirkaaga qof uun hanti sita uun inay ugu shubaan codka wallahi anigu kulli haddaan taas ka jawaabo fikirkayga waxaan ma qabo exactly ninkii ku habboonaa ee asalka ahaa iyadoo aan interest jirin oo aan dhaqaali jirin waa fikirkaygan ka hadlayaa inay soo saarayaan oo si Soomaalinimo iyo wadaninimo ku soo saarayaan ma qabo because ayaga laftooda 275 qof ah dana badan baa jira saan hore ugu sheegay kuwa dhaqaalaha jira kuwa baa jira maaragtay maskab oo kursi doon iyo wax la mid ah dadku isku wada mid maaha dad wanaagsan waa ku jiri karaan waxaan anigu qaba markaan soo gunaado kii hore ee hadda ayagu ay bedeleen waxaan isleeyahay wax yar bay dhaami doonaan waxaan qabar fikirkayga soo koobay professor adiga fikirkaas mid ka duwan ma qabtaa mise xaaladaha saacida duruufaha markaas ay la kulmaan ay ku xiran tahay laakiin baarlamaanka hal codsi aan ujeedinayna heshiisyo badan la keeni doonaa horta dowlad heshiis ay gasho baarlamaanku ansixin inaan ku ablikaareen heshiisyo badan oo badiya bari ku saabsanaa jiro oo taabanayo qarniyaasha soo socda saameynta isku yeelanayo baarlamaanku hadduu wax qabanayo heshiisyada noocaas aad taa nooga ilaaliya heshiis shaksi qalinkiisa wato meel luuq oo ku saxeexay berina adiga culayskiisa kugu dhacayo inay aad nooga ilaaliyaan wixii lagu heshiiyo shuruucda loo doortana inay dhowraan waa iska complicated baarlamaan waxaan kusoo doornay imbagaati haddii magacyada uu isbedel leeyahay oo leeyahay kibligaad iyo imbagaati waxaa bedela mahiiga iyo xalane opposition iyo magac la isku bedbedelayo laakiin ilmaha dhashay isla ilmaha la eegeenay haweenka waliba ilmo badan oo waxa u badan oo ajnabi ah aad u dhashay kuwa hore ugu badnaa ilmo odayaasha wax magacaabaad ogtiin soo xuleen qaabka wax loo xulay waxaa soo dhaw ognahay adee ceebta Allah astura ka qabo khayrna Allah hana siiyo abukat marka aad fogi waxaan ku darsan lahaa baarlamaanka ma soo saarayo wax ka duwan wixii hore oo ka wanaagsan saadaash Allah nooga caalim lah xaqiiqa laakiin saadaash ma oo ah Soomaalidu waxay tiraahdaa gacan daayada wax daayirso ayaga naftirkooda waxaan ognahay ku yimideen dadka Soomaaliya wada nahay ilma adeerna nahay ilma habreeda nahay darisaan nahay dhaliyo ay xigtay iyo waxa naga wada dhaxeeyo iyo maxaa la dhahaa iyo qaraabo iyo guur naga wada dhaxeeyo waas wada warxan waas ka wada warxayna shay ku yimideen xildhibaanada
boqolkiiba 75 ka badan laaluushi ku yimid oo jid cadaalad oo sax ku meelmaan ogaasadii la gatay ogaasadii hadda maanta waa kana xajka lacagta dadka lagu qaadi jiro laguma qaadi karo lacagta waa la badii markii wax dhammaan waa u socdaan waxay u socdaan inay wada dhoofaan socdaan markii xamar sicirka calaamadihi iyo macluushadii waa lagu kacay ka sidii loogu geenayo odayaasha dhaqanka loogu geenayo dambiishooda shubtaan hadda shubtaan dambiishooda waxay dhaleen natiijo ka gedisan natiijada carte iyo imbagaati haddaad si u fiiriso carte iyo imbagaati intervention oo dowladahaasi tudaa ku jiray oo waxay kana nagu interest noo sameeyay laakiin corruption kama badnayn laakiin kan waxaa ku badan corruptionka ninkii marka professor Yahya Camira wuxuu qoray maqaal uu qoray ugu soo dhacayo marka sababtoo u go'daba ninkii ku yimiday oo saga ku gatay 700,000 ilaa 100,000 ku gatay position inuu fariisto ma anuu ii qabanaa wadaniyad ma wax igu qabanaa ma sababta 700,000 dhalaalanayo 100,000 oo diinta markii 100,000 oo diinta iska baxay business waa business oo ku yimid kadibna wuxuu raadinaa sanadka dambe 200,000 ku imaanaya saacad waa badan doonaa markuu afar 300,000 meel dhigo uu kadib haddana wuxuu raadinaa soo gurigii ilmihiina oo sameyn lahaa ma haddii probability-ga saas haddii xisaabta la dhaho statistics aan ku shaqeyno ana ma arkayo marka baarlamaanka rabta ku yimid taas oo lacag ku yimid inuu dhalin doono natiijo fiican ma arkayo number 1 number 2 waxa hadda ka warhaynaa doorashada hadda oo baarlamaanka ku doonkiisa soo dhacday isjiidkiisii nidaamkiisii kala gadashadii soo ku dhacday banaanka inoo taala ya wax la yaqaano waay walaalaanahay waa soo xud maqlaynaa kama fogaan doonto tii madaxweynahan ma ka fogaan doonto suuqa hadda waxaa la leeyahay intaas sicirka oo uu jooga ninkii leeyahay marka ma u maleynayo wax fiican ay dhalayso mana u maleynayo wax fiican ay ka shaqeyn doonto meesha uu professor Yahya Camir uu ka yiri kelimada iyana noo saxiixin heshiis qaldan sida kii hore saxiixaya waxaan xasuustaa oo baarlamaanka naftiisa la rabnaa hadii in dhageysanayo ama cidii taqaanay uu sheegaa shalay Kampala markii laga soo noqday akood Kampala taariikh waxay nagu reebtay lama ilaa waana Soomaaliya hadana waa laga soo horjeestay dadweynaha Muqdisho wada barnaamijyada baarlamaanka wada hadlay xubnihii baarlamaanka 300 ka badan hadasho oo tiri marnaba la soo gelin maayo Kampala akood Shariif Xasan ka soo degay oo gudoomiye baarlamaanka ah waa uu fariisiyay 300 cod ku taagtay marka 300 shala diidaysa ma inta la bedelo 3 kala tin baarlamaanka saas loo sameeyo codkaas loo sameeyo wali waa ku jira kuwan ku jira qolkii la xana ku jirto taasna ku jirta ana marka rajo badan oo ay dadka leeyihiin wax badan isbedel waxba ilaahay muqallib alqulub wa thabbit alqulub ilaahu rabbina qulubtuna wa thabbit muqallib alqulub wa badali kara wa nagu jeedi kara wadani jidka hagaagsan laakiin umaleyn ma ana waa ila aragta ninka ku yimid lacag ka shaqeysana taas aan aaminsan professor ma la dhihi karaa 20 sano ee dagaalada ka jireen dalka Soomaaliya hadba heeray ka soo gudbeen shacabka Soomaaliyeed mar hogaamiye kooxdii ka gudbeen mar waxa imaaday in wadaadadii hadda waxay gaareen in cidna aamin waayaan waxa u harsanay marjac u laabtaan wuxuu ahay oday dhaqameedka hadda baarlamaankan soo xulay hadii farta lagu godayo asaga laftirkiisa laaluusha ku soo xulay leeyahay soo lama dhihi kara Soomaaliya marjac dambe uma harin ee u laabato ما فوتوكوبيا يلا فوتوكوبي كيس على صوبها هذا هذا أحمد لأنه شو قات هذا كلا على صوبها لكن ما كيور فوتوكوبي كيس وصوره لكن قبائل ولا الماء وقاسيو يا إماميو يا السلطان ولي شرف الهاجر أو ديري أو حبني الله درس ولا حلقة بيش قالوا حاجر بلكي على أركان قف كلا الله وكيشارو معذورة اسكير يردار كسمي كنا تجد وجيل وانا نقانا سلطاني وحسو جيران او الى عشان اي ديجنتي بوزيشن واي لكن سلطان هذا انت سلطان جيت هورتس على ولا شو سو وديجر هل على ولا شو كان هوتيل فرانت ولا شو يكوك هل كست هوتيل لو دو حتى ان الامريكي سلطان او دوبيدا انه هاي هوتيل نيروبي كولا لو دو تي توني ورقدي سو وتي تيمبرو امريكا كنا حق وحو كشيغا عدا ولي اسمه تجي ماشي ددك او شيغا ماشي ku nool yihiin صار برسنت غرينا مستر وبدا arrintaas sidaas kugu muuqataa in marjac dambe Soomaaliya ay lahayn oo ay u laabato maadaama odayaashii farta lagu goday wallahi niyo odayaasha laftoodii sida uu walaalkay professor Yahya uu sheegay dhamaantood ma wada waxaan ognahay dhibaatooyin badan waa jiraan oo niman badan oo ama photocopy ah ama marka halka lagu sameeyay oo waliba kuwa sameynaya loo badiyo hadda kuwa xilka haynayeen ee still raadinaya powerka
iyagoo aan hubin dhibaatada, iyagoo aan fiirin dhibaatada dhaqan ee markaa ay keeni karto beesha dhan ee photocopy-ga loo suubiyey iyo isaga laftiisu inuu calfan doono kursiga uu intaasoo dhagar ku galay oo xaggii rabbi iyo xaggii beeshaas iyo xaggii Soomaali weynba marka loo eego. marka waxaan isleeyahay salaadiintu dhammaantood ma wada aha, laakiin in somehow weli halkaa kulama qabo. waa kaaga gedisan oo su-aashaada weydiisay, waxaan qabaa in weli waxarsan yihiin maadaama aanay salaadiintii oo dhan photocopy ahayn. aan meeshaas wax kaga darsado saaxiibada waa ku raayigsanaa waxaana fiican markii wax la sameeyo oo laga hadlayo in dib inta loo eego qiimeyn lagu sameeyo waxa soo baxay natiijada maanta MPyada aan haysano laba tusaale soo qaadanaa oo inay photocopy-ga uu badan yahay oo waxana habka lagu soo xusana ay tahay hab oo nidaamka ka gedisan. tusaale soo qaadanaa dawladda Cabdiwali waxay ka koobantay 18 wasaaradod iyo dhowr kale oo wasiiro dawladeed ay ka koobantaa wasiiro ku-xigeenka agaasimayaal dawladdiisa waxaa ka soo gasho oo baarlamentaari noqotay 27 xubnood oo 27 qabiilo kala gedisan ka yimideen. saaxiibada weydiina ya fursadda awoodda dawladda ay gacanta ku hayeen ku yimideen ama waxay ku yimideen niman diaspora dibadda ka yimideen oo wada naqaanaa in beelahooda wanaag ku soo doortay ma ku yimideen ayaga weydiina saaxiibada weydiina oo dadweynaha sheegayaan halkaas haataya waa number 1 in ay 20 ay ka hesho dawladda Cabdiwali waa qalinka ay gacanta ku haystay soo qorto dhaqaale ay haystay ku korta gareys odayaasha soo xulitaankooda ku soo xulay sharci darro markii ayaga soo xulay. number 2 marka waxa leeyahay dhaqanka meesha looga ciyaaray ee ay ku ciyaarto road mapka adilla ku waxa waa Soomaali ugaas markaan yeelanayno ugaas miyuu fadhiya oo dhaqankeena waa xuseen inay ilaawana ma yaxya hal qodob ka xuseen 7 ugaasan haynaa anaga oo diaspora oo passport shisheeye haysto ama kana 7 ha ii sheegaan marka nin diaspora passport haysto oo 15 sano 20 sano deganaa Yurub deganaa ama reergalbeed meesha ka mid ah oo maamulaya reer hebel ii sheega waa rabaa inay ii sheegaan waa 7 haynaa waxaan haynaa 6 garaaf ka dhacay oo 6 asalka diideen oo yiraahdo anaga in la dilaa ka baqanayna nima kale meesha jidka ugu soo xushay. waxaan haynaa oo tirada noogu jiro oo diyaar ah kuwa ana familkooda wali duuba sharciyan u duuban sharciyan familku wuxuu leeyahay inuu sharci u duubto inta sharci looga duubanayna wuxuu noqonaa ku meel gaar u noqonaa ilaa eegan 4 haynaa. bal ii sheega marka tiradaasaan haynaa oo dhowr iyo 55 ah oo odayaasha dhaqanka 135 ay sheegaysiina saas u haleysana waxa ay soo saareen sax ma dadweynaha u sheegaysiin saas u sheegaysiin adaan fahmina oo malena Zakariya waa xusnay Zakariya cinwaanka sheegnay waxa ay dhaayeen dirsiga si sharaxday laakiin fikirka aan qabto waa kii aan qabno laakiin cinwaanka sheegnay adoo sharaxa gasho bas ana kuma dhihin qabiilada dadkay rabeen soo dirseen marka ma leeyahay waxaan ka hadlaynaa waxay ahayd photocopy laga sameeyay ninkii wax magacaabi lahaa dawladdan hadda ugu dambeysay gaas aan leedahay iyadoo weli meesha ku fadhido hadda waa tagnay waa joognay adiga waa xamar markii hadda waxaa la sameynaya wasiiradii dadka ku qorayay qofkay rabaan ka tiraya iyaga isku bilaabaa ninkoo rabo saaxiibkiisa ugaas wax saxiixay 100% hadda ilaale ama wiilkiisa saxiixayaasha oo 130 iyo dhowrka fiiri ama wiilkiisa ama adeerkiisa ama mid ku jiro ama wakiil isku sameeysto marka qaabka u sameeysatay oo ku raacsan Zakariya waa arkaan different dadka uga sheegay Zakariya waa saxan yahay misunderstanding baan ugu kala dhacay because waxaan ba sheegnay 27 inuu hadda sheegayo wixii meeshaas ka dhacay qolada waataan dhahay inay calfan doonaanba ma hubaan macna damage-ka ay dhaqanka gaarsiiyeen dadka ay bedelayaan waaba iska caddahay inay involved ku ahaayeen oo ay faragelin fara badan ku lahaayeen qolada hadda powerka haysa marka ma kala fogin ba isku mid un baynu nahay waa sidaas u maartay dawladda odayaasha kaliya ma waxaa jira qolo la technical committee khaladka ugu badan nimanka sameeyay ee awoodda isii odayaasha mar awoodda ka qaaday mar dawladda ka qaaday iyaga ahaan qofku inuu khalad galo oo guilty dareemayo waxaad ku ogaan kartaa hadda barkabar in ka badan waxay la soo xariiraan qolada beesha caalamka u taqaanay inta joogto ee Soomaaliya nabad maalin Ingiriisiga saarnaa iyo ka cararayna wadanka waa ka taxallimaanka wax ay magacaabay asiga carara weydiista kii baasbara jibiga waa u socdaa kaan leen wuxuu dhahay nabadgelyo u baahana wuxuu sameeyay xamar joogo ma karo waa lagu dilaa kii waxa taagan kii dadkiisa soo qoreen oo ka tiray iyo kii saaxiibkiisa uu ku bedelay في عدالة درنا شيء قد بصورك على كلمة كذا صراحة
إذا كان ميدي كشغل سنة حتى ما نقدر حل الحي أضيع الأفضوت يا أفضوت فمن كيس أفضوت وإحنا كو أفضوتان قفك كود هور القري وسجى كبدل وقفك لو كبدل فمن كده كود يكون شيئين السجى كتبتلي قفك لو كبدل قولت جيلك وكتبتلي أفضوتان وحد هيستعمل ساجست اللي قال أمك دولة عبد الوهاب كشغل سنة حد لعبت بادية ما أنا اللي بدلك على نك haddii afduubka warkan uu bilowday inta kalena waa isdabageli kartaa master ubada ma la dhihi karaa musuq maasuq odayaasha inuu sidaas u dhex galo waxaa ka shaqeeyay dowladdii kumeel gaarkeeda iyo waqtigeedu sii dhamaanayay si ay awoodda dalka mar labaad ugu yeelato awood tiro badan jaanisna ay u helaan madaxda dalka ugu sarreysay in mar labaad loo doorto saaxiib waxay ila tahay aniga markaan ay fiiriyo arrintaas maba isweydiinba uma baahna waa wax cad saaxiibaday anigu horaan xusnay waxaan ognahay qabaa'ilada qaar dadkii ugaarsiyadoodii dhabtaa soo sooceen inaanay soocin ay bedeleen qolada hadda maamulka haysa ugaarsiyadoodu liiska ay qoreen inay ama dhaqaale lacag ha siiyeen ama si kale ha u amreen technical committee-ga wararka sheegayo inay yiraahdeen bedel beelaha qaarkood waxaan ognahay technical committee-ga kuwa u fadhiyay inaanay ahaynba kuwa metela ee meelo kale laga keenay inay marka hawshaan hadda dhacday ay iyagu la kuleeyihiin oo ay eedeeda qaadayaan mid muran ku jiro oo compromise u baahan maba ahba taasaan ku leeyahay dowlad mid in la kala saaro meesha afar awoodaa jirto badanaa media waxaa ka maqlaa qalad ah saddex shakhsi ugu sarreysa dowladda ama xukuumadda madaxweyne xukuumad goormo noqdo dowlad shaqa xukuumad marka sharci laga hadlayo dowlad ra-iisul wasaare inta ka hooseysa marka baarlaman iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo guddoomiye maxkamadaa jira maxkamada oo iguna awood kaloo jirta baarlamanka waaba kan lasoo dhisaa ma jirin madaxweyne awood dowladeed ma laha hadduuna xusul ku riix ahayn maxkamadda go-aanka keentay idin waa la diidan yahay awoodda keliya harta waxay ahayd tii dowladda ra-iisul wasaare iyo kabinetkiisa oo ilaa khamiistii dhaweyd hadda khamiistan waa shireen awoodda ku shireen beesha caalamku waa leedahay markay noo tageen waxay 20 laga bilaabo bishii lasoo dhaafay wax dowladda ma jiraan madaxweynaha keliya haray khamiistan shirka ay sharci ma yahay sharci ahaan marka loo fiiriyo iyadoo 3 beri ka dhimanta dowladdaasna barnaamijka cusub ku jirta kulligeed marka khaladaadkan waxaan cayjus in la isugu laqay keenay waxyaabo badan waxaad adoo ka fiirsan isku wada laqdane hadda calo xanuunkeeda adoo ku yaala abukaate zakariye dowladdan la filaya hadda inay yeelato soomaaliya waa dowlad aan kumeel gaar ahayn faa'iidooyinka ay uga duwan tahay dowladihii kumeel gaarka ay ka horreeyey wax ma nooga sheegi kartaa markii horta kumeel gaarka laga baxo system ahaan ana horta ma arkaa in laga baxaayo dadka badan haddii igin niyad jabayaan haddii kale ayaga u talaalay ma u jeedo horta in laga baxaayo waa number 1 number 2 laakiin haddii dowlad rasmi laga hadlaayo waxaa lagaga hadlaa oo rasmi lagu noqdaa waa legitimacy kelmadda la yiraahdo oo internationalka ay u wada yaqaaniin dowladaha ay u wada yaqaaniin ama UN-ka legitimacy dowladdu markay legitimacy-gana waxay ku heshaa dadweynaheeda oo boqolkiiba 50 iyo ka badan ay qabaan oo ka yimaado codkooda ku rabay ay ku wakiil ugu noqdaan oo ayaga u soo doortaan inay codkooda u wakiil ugu noqdaan annaga hadda marka waxaan leeyahay dowladdan waxay ka baxaysaa kumeel gaarka legitimacy yeelanaya waa un war naloo yeelinayo laakiin runtii waxay tahay legitimacy waxay ku timaada in aniga la shaqeynayo aniga ma soo dooran dowladda waa la ii yeeriyey marka sababta aan leeyahay hortamaba ka bixi doonta kumeel gaarka waxay tahay gobollo badan iyo degmooyin badan iyo dad badan aanaba legitimacy inay tahay u aqoonsan doonin aanaba yeeli dooninba maskaxdoodana cid kale dhici karta aan lahayn haddaana dowladdiina marka anigu oo muwaadina aan la shaqayn canshuurtii dhiiban la dhuumanin nabadgelyada kala shaqaynin u sheegay cidda nabadgelyada wax ka dhimaysa ee aan garinayo ee aan iyadii sii jebinayo horta marka legitimacy-ga aan ilaashanaya uma kusiinaan taagana wayna dhacaysaa waana imaana wayna badan tahay aadayna u badnaanaysaa horta taas waa mid markaad legitimacy leedahana marka waxaad leedahay inaad investmenteeda company heshiis la geli kartid si ku maalgeliyaan dayman inaad qaada kartid bilateral state inaad geli kartid ay wadda kale la heshiiyo waxaa artiin ku heshiiya labadiina dariina ka tahay diinta allah dayman inaad kala qaada kartiin hub inaad soo gada kartid tartan caalami inaad geli kartid oo resourcegaada inaad qodan kartid resourcegaada inaad difaaca kartid constitutional dalkaada inaad ilaashan kartid constitutional dalkaada inaad difaaca kartid waxyaalahaas oo tiro badan ay helaysaa waxayna ku helaysaa waa legitimacy laakiin hadda su-aasha aan reesgaraynayo dadka aan weydiinayo weliba xataa siyaasiyiinta soomaalida iyo beesha caalamka aan weydiinayo legitimacy 235 miyihin 235 miyihin legitimacy no beelaha waaweyn naftirkooda la sheegayo ayaa ku dhex dulman
oo legitimacy isu ogolay waa number 2 number 3 and oppositionadii ma dhamaanin dowladna marka waxay noqon kartaa legitimacy noqon kartaa ciidankeedii dhaqaalaheedii maamulkeedii dhulkeedii integrity-geeda inay wada haysato ciidan yaa noo amusoma noo haddii amusoma dhaqaaqa ay tiraahdo ay istaagto ciidanmadana ma dhaqaaqi karaan caawa dowladda marka waxay haranaysa ma hana karto skuuradkeeda keliya ma hana karto cashuur inay qaadana rabitaanka dadkay ku xalataa rabitaanka dadkiina ma hanan karto marka kuma inay maalatid aniga waxaan qabaa 4 sano waxay lamid noqon doontaa period transition period oo la marayo oo looga gudbaayo kii hore oo looga gudbaayo in la isdoorto bas professor zakariya madiiraan ku diidanahay kumeel gaar laga baxo ma lagu kumeel gaar waa laga baxa laakiin waxaa la galaa marxalad la yidhaha meel ku gaar dadka waxaa isaga dara kumeel gaar iyo meel ku gaaraa jiro marka hadda kumeel gaarki waa ka baxaynaa waxaan gelaynaa meel ku gaar wax la yidhaha qofba meesha u calaamaysan inuu ku gaara dowlad siyaasad kale hadday leed meesha ku gaare waxaad ogaanaa hadda marka madaxweyne la doortay la dhaariyo ama ra-iisul wasaare la doortay la dhaariyo idaacadaa ka dhiga 7 cash intaa la jooga adda sabab iska xaadirina ama kabaalow taga meeshaasaa lagu soo tahliilinaa wixii noola soo naqana maala nin la doorto isku kalsoon oo dadka in la shiro maxaa intaan ka bilaabnaa dhahay ma jiro horta kow maalinta la dhaariya sitamaan u fiiraadi waa soo xaadirnahay maxaa qabtaa ku xabto marka meesha la gaaraya naga wada maqan waa in loo soo sheegayaa meesha lagu gaaraa marka stagekaas dhaxda uu sheegaya aan maraynaa master ugada maxaa u sababa markii madaxweynaha markii la doorto 7 kadib uu labadaas dal mid tago ama dalalka dariska laba qodob baa horta u sababa anigu aragtidayda ta koobaad waxa weeye horta qofka kalsoonidiisa ama confidence-giisa shakhsiyadeed bay ku xirantay marka ugu horeysa qofku hadduu isku kalsoon yahay oo dadkiisa diintiisa iyo dalkiisa uu ku kalsoon yahay nin kale taladiisa dadku waa shiraa waa la isla taliyaa marka xaalad adag jirto iyo wax la mida laakiin waxa markaba ordisiinaya waxaan isleeyahay waxay dhabeenta ku tahay kalsoonida qofka shakhsiyadeed uu isku kalsoon yahay midda labaadna dee waxayba ahaydba oo aan lagaba sheekayn karin arrin bay noo noqotay ma ogtahay soo jirin waxaanba iska maaragtay habitually iskaba qaabilay nin walba inuu meesha tago maaragtay oo dhinacyada qaarna laga paralyze gareeyey qaabkii wax u socon lahayn sidii abukaati zakariya iyo professorku ay horeba u xuseen marka ma aha mid maaragtay mugdi badani ku jiro haddaan ku noqdo tii kale ee ahayd abukaata iyo professorku ay ka hadleen haddee kolley iyada lafteeda wax badan aada ugagama fogiyo oo hawshu siyaabaha Soomaalidu waxay tiraahdaa hal booliye nirig xalaal ma dhasho 275 heshiisyada ansixin lahaa oo wixii kasta oo maaragtay emotionisa iyo nidaamkii wax u socon lahaayeen qaab baarlamaanka dawladda saldhig ugu weyn horta waa baarlamaanka inkastoo 3 qaybood oo muhiim ah ama 4 qaybood hadba kay noqoto 275 say ku yimaadeen baabo maaragtay shaki badan iyo wax badan ka taagan marka ma garan karayo sida ay maaragtay u noqon karayso wax maaragtay noqda meel ku gaarka aan bay noqonaysaa horta sababta waxaad weydiisay su-aasha marka hore weydiin oo dhaqsi ay ugu aadayaan Ethiopia iyo Uganda labada ciidan baa ka jooga Ethiopia hadii tira maanta ciidamada la baxa Hiiraan iyo Bayr dhulkaas oo dhan bay banayneen Uganda waa la baxa hadii tira waa ka daranta marka qofku naftiisa haddii maanta ra-iisul baarlamaan lagu dhaariyo ama madaxweyne lagu dhaariyo xafiiskiisa ma tegi kara ma ku jira inta lagu dhaariyo waxaa laga yaabaa baawrkaaga inaad ku timaado haddii lagu dhaariyo sanduuqa Uganda lagu dhaxrida baawr yaro xirno sanduuq leeyo xamar saan u lulush hadda madaxweynaha ama ra-iisul baarlamaanka ama ra-iisul wasaare midna inta ka soo tago gurigiisa iyo xafiiskiisa isku camp ku yaalo isku jiro waxa ka badnaa 100 mitir lagu kuma tegi karo halka iridana laga soo qaadaa sanduuqa lagu dhaxrida 30 mitir ka xagga looga dejina marka naftiisa ku xiran tahay jiritaanka noloshiisa ay labada dowlad gacanta ku hayaan حتى عيد الصومال اسكنا عيد المملكة قالوا حلنا حتى قبيل كيس تكون هذا عيد قبيل كيس هو آمنها مجرم حفيزين حول حالتها عسكري اللي بس المركة إن تصور مدة شيء هو مركة عيد مثلا هي مرة حديو دت كيسي لقى لنا سجن كوردا لجيت مش ما استعلم مثلا لا ماركو مركة لجيت مش مدام أون حيسن بعد مثلا إيه جرا وصحنا يوغندا دبتة كو هذا يو عم صوم يو عيد كست دبتة كو هذا وأنا مدة أنا أشرح الله لجيت مش السيد الوجوه معها سيد وحود عين وهلك dadka rabitaan kooda si dhab ah in codka ku siiya markaas si dhab ana ku kula shaqeynayaan
oo laamiga wada xaqaynaa oo laamiga wada dhisaynaa oo aan nabadda cid kasta oo wax u dhimaysa aan qiyaasayna leenahay hebela wax u dhimaan soo wada qabanayna intaan ciidan dowlad la gaarin laakiin madaxda dowladda mar walba waxay sheegeen in xaalad ammaan darteediisa taas suurtagelayn ma aha taas waa midda qaladka waa luqad kale ajnada inaan ku sheega ma rabe haddii rabitaanka caladaysan yahay wada shaqayn ma imaanayso aniga markii ay rabitaanka madax aan ku aqaana leader oo aan ku rabo hortaa dhimana adiga hortaa anaa dhimanaya laamigan kaasii xaaqa marka leaderkayga taa laakiin haddaan ku aqoonsanayn legitimacy na aad igu imaan leaderkayga aan ku aqoonsanayn qodaxda anaa kuusii dhigaa marka midaan rabna inaan u sheegna waxay tahay madaxda soo baxday iyo kuwa soo bixi doona 275 legitimacy kuma imana mana laha legitimacy waxa ay doortaan legitimacy ma laha ee aan dib isugu soo noqono dibna isu saxno hana loo ololeeyo doorasho hal qof iyo hal cod ugu dambeyntii master ubeda maxaa ugu baaqileed shacabka Soomaaliyeed maadaama ku meel gaarnimada laga baxayo oo la leeyahay dawladda Soomaaliyeed loo gudbeeya wallahi horta taas uu saaxiibkay sheegay baan qabaayo naftirkayga inaanay horta noo arkin niman mucaarad oo qalbiga dadka ka dilay laakiin waxaan oran lahaa ummadda Soomaaliyeed ha is cafido waa iska imaan doonaan oo marba waa istabe bal mar walba cadaalad ahaan qaabkii qabiilka iyo wixii ha ka gudbeen ha is cafiyeen ha u soo jeesteen dalkooda iyagaa leh dadkooda iyagaa leh iyagay ka go'daa talada dalku marka waa inay qalbigooda nadiif ka dhigaan gacmaha isqabsadaan professor wanaag haddaad samaynayso dowlad iyo hebelo iyo ha ka sugin qof kastoo Soomaaliya inuu arko waxa wanaag ah asug inuu naftiisa ka bilaabo waxa wanaaga inuu ku dhaqaaqo qof hala kugu daysanaa mid kale laba ku daysanaa sidaas wax ku imaanaya laakiin waliga wanaag lagu keena kaliya sugin hada laftada mas'uuliyad iyo waajib daddibo Soomaaliba ku saar inta ka khusaysa bilaw bukaata ugu dambeyntii waxa ugu baaqay aniga laba ugu dambeyntii laba arrin baan xusan karaan lahaa mid waa mid ugu horeysa critics-ka ama dhaliisha iyo tultuleelada aan ifinayo shakhsiyan aniga markaan u hadlayo iyo saaxiibadayba afkooda aan la maalmayo marka ifinayno waxaan ka hadlaynaa aqoonta iyo waay aragnimada dalkeena aan u leenahay waxaana rabnaa dhibaatada in laga baxo Soomaalidu waxay tiraahdaa boogta kor laga dhayaa hoos kama baskuuto dadka haddaan u sheegin cilada meesha ay ka jirta iyo dhibaatada halka ay ka jirto annaga ayagaan wax u baranay ayagaana waxaan u nahay indho u nahay inaan u sheegno waayo maaha waxa aan ka hadlayno dudumis kritikada aan samaynayna critics oo wax ku duduminayna maaha warkeena waxaa ku jiray dhibaatadaas ay yeelanaysaa in la saxaa fiican oo jidkii lagu saxi lahaa ay noqoto in loo dagaalgalo sida lagu heli lahaa hal cod iyo hal vote aan ka wada shaqeyno sida lagu gaari lahaa marka ma aha macnaheedu legitimacy dowladdan ma lehe aan la dareerna aan burburina maaha aan laakiin jidkeedii marra laakiin in loo sheego waayo adiga xildhibaano aniga codkayga kuma fadhiday ogow yuuna u qaadan inuu codkayga ku fadhiyo yuuna isdhihin heshiiska hartaa geli kartaa balkii beryaanka odhan baa kana diidi karaa madaxweynuhu legitimacy aad ku fadhisid ma aha legitimacyga Soomaaliya oo dhan 275 aan soo wakiilno kaaba qabiil noo soo wakiishay aan ku sii wakiishay wakaalo lagu sii wakaasho waxa u qaldan waa marka anaga 10 dhiibayna maaha dood aan dalkii iyo dadkii iyo niyad samidii aan ku burburinayno waxaan rabnaa iftiin aan ku ifinayno ciladaha ay qaradka jiray in loo ogaado lagana baaraan sida loo saxlaa waxaa dadku kugu wanaagsanaa ninka ku sheegay dhaliisha oo ku dhaliisha waa saas iskugu markii waa saxaysa hadii ninka ku sacdiyaan kugu daran marka annaga horta mid waa naga taas waxaa leeyahay ma naga aha dal burburi niyad jibina ma naga aha inaan step forward sameeyno horna aan sii socono warajina labo umada haddii aanan annaga Soomaali ahaan wada shaqayn wixii soo baxana aanan garab siinin oo aan la shaqayn ma gaarina natiijada saxda ah doorashada 4 sano kadibna waxay noqon doontaa ka qabiilka ka sheekeynayna ee khaladaadka galay marlabaad oo soo soxo ninkii dan kale legitimacy sovereignty iyo wadan horumar dan kale hala shaqeeyo dawladda soo baxa isagoo og cadaalad darro inay ku timo isagoo og corruption inay ku timo isagoo og inay qaldan tahay la shaqeeyo hara kula shaqeeyo sidii loogu gudbi lahaa iyada amaaka kala shaqeeyo cashuuriyaha la dhiibo in horumarka ka shaqeeyo wixii karaankiisa aqoontiisa saa hal xabo wax xuruna annaga meeshaan waxaana dhigay facilitatorka UN-ka markasta loo soo magacaabay oo meesha rabo noo waddan xor aan noqon almana minimum taxta akab madax banaanaano mahiigo oo noo yeeriyo madaxda inuu yeeriyo almana taas kaliya xataa ka dhax banaanaan
aan kula shaqeyna intaas kadibna anagaa wada xisaabtamo kumeelgaarnimada markii laga gudbo midaas in dhamaanaysa ma kula tahay in mahiiga haddii hogaamiyaasha noo soo baxaan ay yihiin wadaniyiin aqoon siyaasadeed iyo waay aragnimo siyaasadeed hadday noo soo baxaan waa ka gudbi kara waxba uma yeeri kara mahiigo hadday laakiin noo soo baxaan kuwii shalay kuwa lamida ama kasii hooseeyo mahiigo waa mana waxna waa noo yeerinaa intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni gaarka ah oo aan uga hadlayna doorashooyinka la filaya inay ka dhacaan waqtiyada soo socda gudaha dalka Soomaaliya barnaamijkan gaarka ah waxaa igala qayb qaadanayay abukaata Sakariya Maxamed Sheekh sidoo kale waxaa igala qayb qaadanayay Professor Yaxya Sheekh Caamir iyo siyaasiga weyn ee Soomaaliyeed Cabdirashiid Cabdullaahi Ubada aad ayaan ka mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah oo u hurtay barnaamijka aad iyo aad ayaan mahadsantihiin intaanu ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo